akademiyada nabadda iyo horumarinta Somaliland ayaa maanta tababar ugu xidhay xarunta Maanagas House magaalada Boorama 51 xubnood oo kala duwan oo ka socday bulshada noocyadeeda kala duwan waxaana lagaga hadlayay dhinaca wacyigelinta doorashooyinka iyo maamul wanaaga degmooyinka kala duwan waxaana munaasabadaas ka hadlay Maxamed Faarax Xirsi oo ku hadlayay magaca akademiyada waxaana uu sheegay in akademiyadu muddo 13 sanadood ay ka shaqeynaysay Somaliland waxaana uu sheegay inay gacanta ku hayaan taariikhda Somaliland maqal iyo muuqaalba waxaana uu cadeeyay inay tahay xarun cilmi baariseed qofku inuu meel ka guuri karo meel degi karayo qofku inuu hanti yeelan karayo hantida inuu sidoo isagu doono maamul karayo qofku inuu ayahiisa ka tashan karayo qofku bilaadanki inaan magaranaysa jidil lagu sameyn karo wax torture ay ku tilmaamaan qofku hadduu dambi galo oo dambi ilaa dambigaas ku cadaado lama oranayo dambiile markay maxkamadda xukun ku ridun baa oranayo waa dambiile xubno ka tirsan ka qaybgalayaashii oo iyaguna halkaas ka hadlayay ayaa cadeeyay inay ka qayb qaadan doonaan hawl kasta oo wax lagaga qabanayo dhibaatooyinkii ka hor iman lahaa dhinaca doorashooyinka dhawaan la filayo inay ka qabsoomaan dalka Somaliland inagu islaam ahaan waxa inagu waajiba inaan ka qaadano maxaa saxaabis aynaan u gudbin wixii kale dimuqraasiga laynoo keenay laynoo leeyahay dahabuulay waajibaad iyo xuquuq labadaba uu bixinayo ma aha inagu waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa haddaan eegno oo aynu ku sii dhaadhacno macnaha waxa weeye waxaanu ka tegaynaa islaamnimadeena iyo caqiidadeena laakiin waxaan qaadanaynaa mar haddii ummad uun loo rabo soo waa caafi